intaan dooranin ka hor waxa muhiim ah inaad isweydiisid limaada tatazawaj oo limaada takhtaar gabadha maxaa ku dooranaysaa sabab la sabab maxaa ma aha sabab ah u guursanay hada qof guursan raba daa tiraado war maxaa u guursanaysaa waa aroos rabtaa Soomaaliya waa guursan raba maxaa waa aroos laakiin hada tiraado wuxuu kule mawaalanta oo dadka dhan maxay isku aroosan wuxuu kule dadka maxay isku guursadaan dadka waxay isku guursadaan muku anficayso taas hadaadan hadaf iyo aragti waadix aadan haysanin qofkan u guursanaysid oo leeda waxaas iyo waxaas qofka u guursanooya dadka waxay u guursadaan hada maxaa ka galay hada intaan hada su'aashaas weydiin lahayn waa ku kala duwalaan qof walba uu qalbigiisa ka hadlaya wallahi waxa uu guursanaa inaa is dhowro ilaahay baa guursaday riyo ma aragti nabi maxamed ma naamray inaan guursano oo taasi general ah way guud waay laakiin adiga shakhsiyan maxaa ku riixay inaa guursatid su'aal waay laana qofka markuu guursado uu dagay ma gabdhaha waxa arkay internet saaxiib aan ku nahay inta la guursanin ka hor halka sawir halka post halka war ah halka maanta dhan comment ah ee baxay way aftaa markay guursadeen kadib kaal adigu arag meelay ka baxay wixii sawir la soo dhigi jiray wixii maaragtay comment la soo dhigi jiray male waxa isir marka dadka mustaqiriin nafsiyan noqdeen marka waxa ugu weyn waana run waxa maaragtay deganaantaas iyo xasiloonidaas qofku u raadina inuu xasilo oo uu dago ayuu qofkii raadina inay ka baxno routine oo routine maxaa way kaliya inaan noolaato waliga taqaanay laakiin qof kale la noolaato hor uma soo arkin waxa u baahan tahay marka routine inaa ka baxdo nolol kale aa gasho tan saddexaad waxay dhaheen waxay u guursanayaan li ajli al jins qofkan baahidiisa qofkan kale ka jirto inuu ka dhameystirto taas ay u guursanayaan bal taas waxay noqotay kan koowaad ayay noqotay waana wax jiro waana wax sax ah waaye oo dadka maaragtay ay isku dhowrida lagu sheegay waata laba qof inay is dhowraan oo is dhameystiraan gabdhaha maxay xoog saareen marka gabdhaha hal marna waxay xoog saar al hub wa romansiya jacayl ina helno iyo romantic iyo maarag nin maanta dhan wadwadaayo inta noo kala wadwado waxa kale oo leeyahay ashuuru bil amaan gabadha inay amaan dareento gabadha markay nin rag ah ku tiirsan tahay oo garabkeeda uu taagan yahay way ka amaan badan tahay markay kaligeed tahay مثلا qof aa u timid waa la tashatay hay inaan guursadaan rabaa gabadha inaan guursadaan rabaa waxa gabadha iska ilaali buu kula iska ilaali hadda intaan guursanin ka hor ma aragta haweenka waa la iska ilaaliyaa yeesan kugu soo qabsanin yeesan kugu afbaranin jiljilacaysan kugu baranin muxuu leeyahay jiljilacaysan kugu baranin yeesan ma aragta kugu arkin nin bi amaan nin noqo inaan nin tahay lagu ogaado gabadhii dad la soo tashanay waxa leeyahay ma guursan rabtaa ninkaas inuu wax helo kala ilaali hadduu wax kugu helo waa kula guursanaya maaragtay iska ilaali maanta dhan jeebkiisa le u soo jeeso yuusan kugu afbaranin maskiinimo nin maskiinimo lama tus ha isku tusin maskiinimada ha isku tusin istishaarada taas waa qoftiida buuxda marka isku imaana labadii qofood kan inta laga soo buuxiyay hada weerar daafaca lagu kala jiraa marka استشارة تاس لما دهيا لا تشي تاس لما ده وحالة تشتاقف أقان إسلاده وحاول كديري هاي وحبوا كوسيادنا علىها قبرده وليه قف وناكسوا علىها لا تشو استخارة سوءاتي إسك صبرتي صدارتي بين هذا قف ما يستر المجرو قفل بمال ولاية أنت رادين سقف بقفك كده ما يستريه وسوء تجناني لي لكن قفك واحد ملوق هذا كراه مش ملوق وحيابها قار قفك ملوق هذا كراه waxyaabo qaarna qofka lagu ma qaadan karo ad markay ku kala soocayna laga rabaa waxa wallahi qofkan bini aadam uu yahay waa ku qaatay maaragtay waa caadi inaad tiraadid ugu dambaysa maxaa marka istiqaara laba ragcad dukanaysa ilaahay guurkan haduu qeyr iigu jiro ii soo dadeji kadibna gabadhii waa doolanaysa wabillahi tawfiiq ilaahay ha idin barakeeyo hadda waa dhisna reer dhan dhisna hadda saana ku dhisnay reer dhanaan dhisnay hadda waxaan ka soo bilownay aragtidii fikradii ka soo bilownay waa iska soo ogaatay waa soo tashatay salaadii waa dukatay khalaas reerku waa dhisay barakallahu fiikum wiil iyo caano gabar iyo caano
gabar iska masaakiin oo ma aragtay aqoon ahaan adiga aan ku dhigmin ama aan wax soo barnina soo guursatay hada wixii kula fahmime theory aan dhaha waxaan iyo ingiriis daa ku dadashay iyo carabi daa ku dadasho kula fahmime wixii kula ma taqaan gabadhii saas oo kale qofta aqoon-yahanadu waxay soo bartay waxay soo aqrisay qof waxay guursatay wixii aan la fahamsaneen waa ninkii dhaay maaragtay islaanta maalin kasta xabiibi waxay ii tira maalin kasta maaragtay wax soo bartay waa ninkaas maaragtay wax fiican ku dhahay xabiibi dhaay islaam waqti markaas uu leeyahay xabiibi dhaay way sirsaranaysaa ka waran uu leeyahay marka waxa rabaa labada qofood takaafu taqaarub isku dhawaasho fikir ahaan saas oo kale مثلا أهداف أنا ولا شكل هذا وحيا باربته هنا قارتيد قف وحاربته هدف لها تاي كل ما عرفته وحي كل هذا والته ماشي عن فريسة واحد اسمه قاري سيده هرتها قاري واي ويكون يجبيني أما قبل هدف إلا هذا هاي وحبرشة ذي إن هيرك قارتن ويربته قرية ذي إن هيرك قارت ويربته نكان يكون ولا على محمد قشع وحي حرت ما ويسي وحي أنت ما ويسي قرية فدي مثلا قبر عد ladan oo qani ka dhalatay oo ciidaha sarsara oo level 1 ka level 8 taagan oo habeen kasta jibis iyo chocolate cuni jirtay chocolate iyo chocolate cuni jirtay oo waxaan kala u aragtay ma aragtay cuntadan kala u aragtay waxaan loo baahnayno cawada dhan ku soo wacay waxaas ii soo mar maqaayada halka ii soo gad ka ii kan ku jirta loo keeni jiray marka adoo iska miskiin ah oo bishii hal mar laga yaabo inaad jibis cuni jirtay ee guriga kuugu imaato wixii macnaa mustawihiini dhaqaalahaan iskuma dhawidiin saadirteed waxa rabaa labada qofood inay isku dhaw yihiin dhinacyada nolosha inay iskaga dhaw yihiin inay isku mid yihiin maaha laakiin inay isku dhaw yihiin inay isdhamaystiri karaan idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu maxaa la wadaa dhaqankiisa dabeecadiisa ayaa laga wadaa qof diinta si kastuu u leeyahay dabeecada ka dhintay waa dhici karta دكتور سعد العتيق وحدي جري هدا أركته ويرنين سجود هالكا ما أركت أي مذوبيسي مظهر كشكل دين تكمل آت وسريسه لكن بقيل أهو يركعر سكست دين تو موقت لكن دو بقيل يه أما هذا الأذقي هاي أما هوينك ودريه هاي ما أركت خلقي ساعلنا دينتي سكلي وحكم مترس لأنه حاوي دينته وحاول دقن على الروا دقن إنا نقطع الروا مثلا قف كان دين وليه لكن نظرته للمرأة وهو سيسا وحيابا آديات كماركت عن قبلها أوديقوا ويان أما أنا النعبة حقيقة قفك دين وليه لكن هوانك قبلها يوحو أركا ماركت وح ماركت متاع إسكاهو ألابيرو ماركت لأم وحلو راح يستقون كلي إنيهين ماركت هوانك تنو فرايا تنو قرسنا تنو فرايا تنو قرسنا محي دينتي سدري تريسا مركز وعمية لأنه وحن كسر أمارك حالات تربضن قبله مارك أصحاب تيذا يقار أن أقانو أو ضد كرة مظهر كودي شكل كودي مقال كودي لكن مركي هذا يكسر دماغه نول أدي أدوليته ولي وحقف مسلم وكودك ما حتى كمدك مايان لكن وضد فرينتي مسج كي دين تحمبارسن مركي أدي أدسك إلهي دا دينتي إلهي ستو ضد كان إلهي ووعب سنة سادرتي حسن البصري markii dadka la weydiinay maxaa la yiri gabadheedii u guuriya markii la yiri wuxuu yiri gabadhaada waxa u guurisaa qof ilaahay ka cabsanayo haduu jeclaado ma dayacaayo haduu nacana ma dulminayo nabiga kaleey salaam islaantii gabadhii markay u timid ee ku tiri yaa rasuulallah labada nin ba shukaansanaya oo soo doontay inaan guursadaan rabaaye wax iga dheh nabigu muxuu yiri ninka muaawiye la yiraahdo iyo abu jahmiye kala hayeen muaawiye wax ma haysto wuu yiri فسعلوكم لا مال له حول ما هيستو ماشي النبي محو فيري الجانب الاقتصادي لأنه قريق الدقالان ما دسمايو ما تاقنانايو قفكو ينو فيري واي كان كالنا محو يري وشا اسكما دقايو يري ما انت دن وشو كعنتكو هيستا تاس معنى وحاوي وصفر بدي هاي اما هواينكو قراعة قف هواينك قراعة دبي عديها كدنت هدو سفر بدي هاينا قوانا نينكا وحيو قورستي ما عرقتا انو زوج ونقضو او نين ونقضو إنه مجاعيال ونقضوا مقرسنين باهيال دميستيرو معناه وحواي قبلنا وحلاقيها با ويل كان دليرة إنه سمع نين كان إنه كهشي باهي أيضا كم مقنعه مثلا أما إنه حوله كرع وهنتيه كم مقنعه أما قف معركة باسك أبهد ويستاو أبه مسوا كورنين أما مسوا هيلين قف معركة ودي مريا باسك أبهد ويستاو ربطا إنه قف كان ونقضه يعني جورك أصلك وحالي هذا تكامل الحاجات
وإن ضدك لبض قفوت باهيهود إسلام استرايان أنت بدل لكن جيل بجيل كيس وإسلام استرا سما ضدك دليرة باهيدي صح أنت بدل لما يسترك رقف كلو دليرة لكن نبينا عليه الصلاة والسلام قف كدأه نوسو جورسدي قف كير نوسو جورسدي قف كوين نوسو جورسدي سدح لما حالي هذا كو الزوجة الأم الزوجة الصديقة هي الزوجة الابنة زوجة باسك هاي كوتاجن معناه حواي قف كوين أما زوج باسك أباه كوتاجن معناه حواي قف كوين الزوجة الصديقة محاوي قبر كل صاحبه أما ويل كل صاحبه معناه محاوي وقف اسكداتهين الزوجة الابنة أما الزوج الابن محاوي ننكا داير أما قبر ما عرفت ننكا كير نبي مركا زوجة الأم يا أوتاجنا قديجة أوتاجنت قديجة نبي محبو حين يسمرك وقاعدة نين يرى أو يدي أبي مرة دنتين أو وحفي عن أهل سنين أو وحوها ما عرفت أذيرك إسكالنور شن إلا واتسن مركو جار جوربة وبنكتب إسجور سدين قديجة مركا باسكي وحبو حسي حنانكي نحريستي هذا الكي وناكسنا كالمينتي بقالة هذه أبو حسي محي تاجنتها مركا الزوجة الأم باسكي هاي تاجنتها نبي قديجة باسكاس أبو حسي وكوسا مال مري واحد يمركو كوسا دقاي حالته صامر إلهي بقى إلهي سبحانه وتعالى قديجة ودياريه